bandhig carweedkan wax soo saarka warshadaha ciidanka asluubta oo ay sameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe xamar ayaa waxay iskugu jiraan qalabka fadhiga, alaabta jiifka, miisas, kuraas iyo weliba gaari aan xabad karin oo ay sameeyeen iyo qalabka hidaha iyo dhaqanka taas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Bandhiga wax soo saarka warshadaha ciidanka asluubta ayaa waxa uu socon doonaa 3 maalin waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xeerlaaliyaha guud ee qaranka, taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo asluubta iyo mas'uuliyiin kale. qaar ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe xamar kuwaas oo qayb ka ah maxaabiista ka shaqeysa warshadaha wax soo saarka ayaa waxay sheegeen in ayagoo xabsiga dhexe ku jira ay fursad u heleen in reerahooda ay ku maareeyaan dhaqaalaha ka soo xarooda shaqada. Way ogolaadeen sida kabaha balooniga lagu dheelo, buumooyinka balooniga lagu dheelo, nigisyada, fulaanadaha oo kale, sigisaanta, wax dhararka fudud oo xabsiga loo ogol yahay inaan keeno aan ku baabastiro aan ilmaha wax ugu dhigo. Anu waxaan dareemayaa in horumar aan maantaas gaaray waayo wixii aan anigu gacanteeda ku sameeyay shalay aan la aqoonin baa xabsiga dhaxal ay keenay maantana waxaan gacanteeda ku sameeyay bandhig la taagnahay. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in bandhigan uu socon doono 3 maalin, qalabkan uu yahay qiimo jaban isla markaana mashaariic badan uu talisku wado. waxa kale aan maanta soo bandhigaynaa qalabka gaadiidka ama gaadiidka sameyntiisa waxaad la yaabi doontaan oo hadda idin soo aad la yaabi doontaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed inay dib u habeeyeen oo farsameeyeen baabuur aysan xabad karin ama nooca loo yaqaano bulletproofka kaasoo maanta ku arki doontaan barxadda goobtan aan xafladda ku sameynayno. bandhigaas oo socon doona muddo 3 maalmooda oo maantay bari iyo saad dambe annagoo dadweynaha ay u furan tahay lacag la'aanna ay tahay lagu soo galayo. qofkii dalbada qalabkaas meesha lagu arko ama mid ku raba asagu naqshadiisa inta carwada socotana loo sameyn doono qiimo jabis aad u weyn. wasiirka cadaaladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay ku howlan tahay dib u dhiska xarumaha ciidanka asluubta. maanta waxaan u jeednaa qalab kala duwan ay soo saareen looga baahan yahay shacabka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay ka faa'iideystaan. intii meel kale u raadsan lahaayeen waa barnaamijkii isxilqaanku qeybkii yahay waa isxilqaameen waxa ay shacabka u soo saareen wixii ay soo saareen waa in la iibsadaa. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku dheeraaday waxqabadka asluubta isagoo ugu dambeyntii daafuray bandhiga wax soo saarka ciidanka asluubta. ciidamada asluubta ma aha ciidamo xabsi waa warshad soo saarta wax fara badan. ciidamada asluubta waagii hore waxay ahayd hay'ad wax soo saar bay ahayd. meelo fara badan waa beeraha, waa xoolaha, waa warshadda, yacni wax kasta oo wax soo saara waa ku jireen. haddana raadkii ayay hayaan. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.